السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aan dib ugu noqono cashirkeenii hore cardiovascular drugs dawooyinka wadnaha loo isticmaalo waxay ka koobnaayeen A, B, C iyo D, laba A ya, B, laba C ya iyo laba D ya. Labada A ga waxaa kamid ahaa ACEI iyo ARB, B da waxaa kamid ahaa beta blockers, labada C ya waxaa kamid ahaa calcium channel blockers iyo central acting agent, labada D da waxaa kamid ahaa diuretics-ka iyo dilators ama vasodilators. Waxaan soo dhiganay labada A da ama angiotensin converting enzyme inhibitors-ka kooxda loo yaqaano iyo angiotensin receptor blockers-ka kooxda loo yaqaano. Sidoo kale waxaan soo dhiganay beta blockers-ka kooxda loo yaqaano. Maanta waxaynu bilaabi doonaa sida qaybteeda koobaad oo ahayd calcium channel blockers. haddaba calcium channel blockers waa dawooyin kamid ah dawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo. Class member-ka ama kooxda kamid ah ama kooxda hoos timaada waxaa kamid ah kooxda koobaad oo loo yaqaano dihydropyridines oo ay kamid yihiin nifedipine, felodipine, amlodipine iyo nimodipine. kuwaas waxaa la isku yiraahdaa dihydropyridine waana qayb kamid ah calcium channel blockers-ka. kooxda labaad waxaa loo yaqaanaa non-dihydropyridines-ka waxaana kamid ah labada dawo verapamil iyo diltiazem. waxaad ogaanaysaa calcium channel blockers-ka si aad u xasuusato waxay ku dhamaadaan badankoodu dhibin marka laga reebo non-dihydropyridines-ka ay ka midka yihiin verapamil iyo diltiazem. Indication-ka ama xaaladda loo isticmaali karo maxay tahay calcium channel blockers-ku waxaa kamid ah ama loo isticmaali karaa hypertension, dhiigkarka loo isticmaali karaa. sidoo kale improve angina symptoms, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa ama lagu daaweyn karaa xaaladaha anginaha. Angina waa xanuun kamid ah xanuunada ku dhaca dadka gaar ahaan waa xaalad timaada marka oxygen-ta ay yaraato taasoo qofku uu dareemo xanuun aad u fara badan uu ka dareemo laabta ama wadnaha. xaaladaas ayaa wax loo yaqaanaa angina symptoms. marka xaaladan waa loo isticmaali karaa. side effect-ga ay keeni karaan calcium channel blockers-ku waxaa kamid ah peripheral edema, qofka oo adimadu ama lugaha ama qacmaha ay bararaan. waxaa kamid ah sidoo kale orthostatic hypotension-ka xaaladda loo yaqaano oo ah in cadaadiska ama blood pressure-ku si lama filaan hoos ugu dhaco qofkuna uu isagoo sare jooga tawakhaad uu dareemo. waxaa kamid ah sidoo kale waxa loo yaqaano reflex tachycardia, qaraaca wadnuhu inuu saayido. gaar ahaan waa marka blood pressure-ka dawooyinkani ay hoos u dhigaan kadibna waxay sababayaan in qaraacii ama pulse rate-kii uu kor u kaco, xaalad la xiriirta blood pressure-kaas hoos u dhacay aawadeed oo uu wadnuhu dadaal ku bixiyo sidii uu vital organ-ka u gaarsiin lahaa blood iyo oxygen. xaaladaasna waxaa loo yaqaanaa reflex tachycardia oo qaraaca wadnaha oo siyaada taasoo ay sabab u tahay blood pressure hoos u dhacay. mechanism of action-ka si fudud dawooyinkan qaabka ay u shaqeeyaan waxa weeyaan these drugs have ability to relax blood vessels. dawooyinkan waxay awood u leeyihiin inay dabciyaan xididada uu dhiigu dhex marayo ayaabay dabcinayaan. contraindications-ka ayaa laga mamnuucay dawooyinkan. waxaa laga mamnuucay heart failure hadduu qofku leeyahay, wadnuhu hadduu shaqo gabo waa laga mamnuucay. severe bradycardia haddii qaraaca wadnihiisu qofka aad u daciif yahay waa laga mamnuucay. sidoo kale myocardial infarction haddii wadnaha qayb kamid ay damage garowday sabab ka timiday blood iyo oxygen la-aan ay u damage garowday ama xaaladan myocardial uu qofku qabo lama siin karo. marka myocardial infarction waa marka xaaladda bukaanka wadnihiisa qayb kamid ah ay heli weydo oxygen iyo blood ku filan taasoo damage garowda ayaa wax loo yaqaanaa myocardial infarction. xaaladaasna haddii ay qofka haysato lama siinayo calcium channel blockers. sidoo kale interactions-ka dawooyinka interactions-ka ama waxyaalaha aanan calcium channel blockers-ka ku habboonayn in lala qaato
waxa weeyaan avoid a grapefruit when taking calcium channel blockers marka dawooyinkan calcium channel blockers aad qaadanayso ka fogow inaad qaadato waxa loo yaqaan grapefruit ama liin balbalooni nooc loo yaqaan taas inta badan waxay sababtaa in calcium channel blockers ay muddo fara badan jirka ku jiraan hadii lala qaato liintan juice-keega ama iyada midhaheegaba taasoo sababta calcium channel blockers ama dawooyinka qofku qaata inay muddo fara badan jirkiisa ku jiraado ay sababaan wixii la oran jiray side effect-kii ay kamid ahaayeen madax xanuun tawakhaad xaaladahaas in ay sababaan baa dhacda marka waa laga fogeeyaa ama hala qaadan liin balbalooniga dawooyinkan aan kor ku soo xusnay waxa aan soo dhiganay dawooyinka calcium channel blockers ama CCB-ga way kamid ahaayeen Redivine, Amlodipine, Nifedipine, Nicardipine, Nimodipine, Felodipine iyo sidoo kale Verapamil iyo Diltiazem dhamaan xogtii iyo information-kii dawooyinkaasi sidaas ayay inoogu idil yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.